guurkaana ha la fudaydiyo yaana la isku adkayn oo haddaan guurka la adkeeyo baa la yidhi oo yacni waxyaaba badbadan oo adadagoo aan loo baahnayn shuruuda looga dhigo bimacnaa dhallinyarada waxaa u fududaanaysa marka inay zinada ku dhacaan dhulkana zinaduna waa fududahayba laanna waddankan waa wax qabanayo ka xarimaaba jirinba waxaa laga yaabaa cishradooduba inay ku dhisan tahay zino marka nin dhallinyaro qof dhallinyaro oo muslim oo ilaahay uu qaaradan uu keenay waa adag tahay markaas siduu ku badbaado lidaalika waalidadana waxaan leenahay fudaydiya oo ha la fudaydiya zawaajka oo ha lagu dhiirigeliyo dhallinyaradu inay guursadaan oo gabdhahana ha lagu dhiirigeliyo oo dhallinyaradana masaajida iyo diinta iyo dacwadda ha lagu soo tarbiyadeeyo oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa kii ku lahaa almu'minu alladii yukhaalitu annaasa wayasbiru calaa aadaahum afdalu min almu'min alladii laa yukhaalitu annaasa walaa yasbiru calaa aadaahum baa nabigu yihi mu'minka dadka dhex galaya ee dhibkooda u adkaysanaya waxa uu ka fadli badan yahay buu nabigu yidhi mu'minka dadka aanan dhex galaynin dhibkoodana aan u adkaysanayn waa mu'minka caabidka ee iska cibaadaysanaya masjidka ku taxan ee aan dacwadda iyo khayrka wanaagga ummadda aan la dhex soconaynin waa caabid waa naftiisa weeyaan dadkii ma dhexgelin bay ka dhigan tahay cidna markaa ma dhibaysa isaga laakiin markaad noqotid daaci ee saro kacdo ee dhallinyarada iyo dadka nolosha ka dhacay ee dayacanee shaydaanku albaabada uu ka horjoogsaday masaajidka halkooga markaad ugu tegtid way ku dhibayaan way ku aflagaadeynayaan waa sabri markaa kaal muuminkae markaa dadka dhex galaya la mucaamaloonaya gaaladii buu dhex galayaa akhlaaq wanaagsan buu kula dhaqmayaa muslimiintii buu dhex galayaa salaadiiyo masaajidka iyo toobadda iyo camalka wanaagsan buu ugu yeedhayaa dhibka ayaga ka soo gaarana uu adkaysanayaa kaasaa ka fadli badan buu yihi ka dadkaana dhex galayn waddankana haddaa dadka adigu aad dhexgeli weydo oo waxaad waddo aada ummadda dhexgeli weydo waxa dadka kale ay wadaan baa lagu dhexgelin qofkii jecel barashada qur'aanka kariimka adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo addacwa qur'aan online ayaa ku diyaara haddaba nagala soo xiriir ciwaanadeena facebookgeena dugsiga qur'aanka addacwa iyo instagramkeena gaarsiiyo official ama lambarkeena whatsapp oo saaran brofilka